wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay meydad lagu gubay duleedka magaalada Hargeysa. wasiirka ayaa sheegay inay baaritaan kadib ay xaqiiqsadeen in madaahibta kala duwan ee diinta islaamku ay ogashahay in dadka aan islaamka ahayn ay meydadkooda siday doonaan ka yeeli karaan, isla markaasina aanay wax dhibaato ku jirin in meyd qof aan muslim ahayn la gubo. wasiirku waxa uu sheegay in aanay caalamka islaamka marnaba ka dhicin in dadka aan islaamka ahayn meydkooda loo diido. sidoo kalena wasiirku waxa uu intaasi raaciyay in meesha lagu gubay meydka aanay ahayn meel ku munaasiba isla markaasina aan la isla ogeyn. waxaan cadaynay in madaahibta islaamiga isku khilaafsanayn qofka gaalka ah ee aan muslimka ahayn ee runtii xurmada islaamku kale ma laha. sidaa darteed waxay cadeeyeen ciddii ahlka u ahayd haddii joogto waa loo dhibaya si ay doonaan haw galaane. sidaa darteed innaku kamaynu qayb qaadanin inaanu ilaalino mooyaane oo dee waqti loo ilaaliyo goobta mooyaane lagama qayb qaadanin gubitaankiisii, laakiin gabadhiisii oo joogta iyo ehelkiisii iyo sayniskii la joogay ayaa lagu wareejiyey. waxaa runtii khaldanayd oo runtii aan kula xisaabtanayna dadkii geystay ama caddaankii iyo sayniskii hawshaa geystay inay la tegeen gubista meydkaasi meelaan ku habboonayn sidii ballantu ay ahayd. taas waa khald ka dhacay iyaga, laakiin xagga diinteenna sharci ahaan qofkaas gaalka ah ma mutaysanin xurmadii uu lahaa qofka muslimka sharci ahaan. haddana wax xaq loo u yeeshay inaynu ku wareejinno dadkii iyagu ehelka u ahaa si shareecadu dhigayso. manay dhicin dhaqankooda u ahaa inay gubaan, manay dhicin caalamul islaami cid caynkaasoo kale looga qaado amba loogu diido meydkooda inay aastaan amba ay gubaan amba ay waxay doonaan ku sameeyaan. sharci ahaanna saasaa loo ogolaaday. geesta kalena qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa khudbadihii jimcihii la soo dhaafay arrintaasi ku soo qaatay, isla markaasna waxay culimadu arrintaasi ku tilmaameen inay tahay dambi iyo qalad la galay in dad dhintay la gubo. cali fahad sab TV Hargeysa. pc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo accountkiisa Dar es Salaam Bank. haddaba la soo deg abka pc